dood kulul ayaa durba ka dhalatay qodobo ka mid ah sharciga doorashooyinka ee ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyadoo qodobkan uu muddo kordhin siinayo madaxweynaha iyo baarlamaanka hadda jira qodobka 56 ee doorashooyinka ayaa si cad u qeexaya in haddii doorashooyinka dibdhac uu ku yimaado duruufooyin adag oo jira awgood baarlamaanka iyo madaxweynahaba ay xilka sii hayn doonaan inta laga gudbayo duruufahaasi muddo dheer ayaa laga warsugayay hindi sharciyeedka doorashooyinka oo ugu dambeyn la horgeeyo golaha wasiirada isla markaana ay ansixiyeen iyadoo bishii la soo dhaafay aad loo hadalhayay muddo kororsi la sheegay in madaxda dawladda federaalka ay ku fikirayaan ayaa qodobka 56 wuxuu qeexayaa cadeynayaana in haddii ay dhici weyso doorashada xildhibaanada baarlamaanka duruufo soo kordhay awgood in waqti kororsi ay samaysan karaan baarlamaanka farqada 7 ee isla qodobkan ayaa si cad u sheegaysa haddii baarlamaanka muddada loo kordhiyo in madaxweynuhu uu isla sidaasi oo kale muddadiisa ugu kordhisanayo xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda sharcigan waxaa durba gaashaanka ku dhuftay dowlad goboleedyada qaarkood iyo asxaabta siyaasadeed waxayna ku tilmaameen arrin ka soo horjeeda dastuurka dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku saabsan diidmada ku aadan sharcigan war-saxaafadeeda ayaa inta badan isu ekaa dhanka qodobada waxaana loogu baaqay madaxda dawladdu inay dib uga fiirsadaan sharciga golaha wasiirada ay ansixiyeen ee doorashooyinka iyo waliba kan batroolka xeerkan cusub ayaa dhigaya in doorashada lagu galo qaab xisbiyo iyada oo musharaxa madaxweyne ee xisbi ee hela aqlabiyadda baarlamaanka oo si toos ah u noqonayo madaxweynaha isla xisbigaasna uu noqonayo kan soo dhisaya xukuumadda dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa qaba in madaxweynaha ay soo doortaan xildhibaanada baarlamaanka war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta ee Puntland ayaa lagu sheegay inay ka soo horjeedaan go'aanada aan waafaqsanayn dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku tallaabsatay waxaana qoraalka lagu yiri dawladda Puntland waxay ka digaysaa ficilada madaxda dawladda federaalka isku gaar yeelayso talada iyo go'aanada masiiriga ah ee dadka sida geedi socodka dhamaystirka dastuurka hanaanka xasilinta iyo amniga dalka iyo qaybsiga awoodaha iyo kheyraadka dalka doorashooyinka iyo dhammaan cadaaladda ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka Puntland haddaba dawladda Puntland waxay si cad uga soo horjeesatay go'aankii aan waafaqsanayn dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka ee xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya ay ku tillaabsatay sida diyaarinta wax ka beddelka xeerka batroolka ee dalka ee aan horey loogu heshin iyo ansixinta xeerka lagu sheegay kan doorashooyinka dalka ee 2 May 2019 ay meel mariyeen golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya dawladda Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibada beesha caalamka u cadeynaysaa inaanay qayb ka ahayn go'aanada aan dastuurka waafaqsanayn kana soo horjeedo qaabka loo diyaariyay iyo ansixinta xeerka doorashooyinka oo aan ku imaan wada tashi sidoo kale war-saxaafadeedka ka soo baxay dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu sheegay annagoo ilaalinayna midnimada geedi socodka dhismaha dawladnimo oo ku salaysan hanaan federaal oo horey loogu heshiiyay waxaan si buuxda u cadeynaynaa inaanan qayb ka ahayn go'aanadaas aan waafaqsanayn dastuurka kumeel gaarka ah kuna imaan qaab loo dhan yahay isla markaana lagu carqaladeynayo shirka lagu ballansan yahay inuu ka dhaco Garowe oo ay ahayd in looga wada hadlo qodobadan ay la carareen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo keeni karta baa la yiri in la kala fogaado iyo dib u dhac ku yimaada geedi socodka federaaleynta dalka nidaamka doorashooyinka lagu galayo ayaa noqonaya kan loo yaqaano matalaad dheelitiran ee liiska xiran taas oo ka dhigan in xisbiyada ay doorashada ka hor soo gudbiyaan magacyada musharaxiinta xildhibaanada si kastaba haatee xukuumadda federaalka iyo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaanan weli labaduba ka hadlin intii sharciyeedkan cusub hase yeeshee waxaa jirta madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu inay isugu imaan doonaan magaalada Garowe waxaana laga yaabaa in arrintan looga hadlo shirarkaasi Yuusuf Cabdishire wararka SBC